السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan markale asxaabay meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta oo Isniin aan idiin soo gudbinayo taariikhdu waa 4 bisha Agoosto sanadka 2025 waa barnaamijkii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa kamid ah Xamaas oo jawaab siisay hay'adda Laanqeyrta Cas ee adduunka kadib markii ay wax codsiga ay u soo dirtay haddaba tafaasiil ku saabsan hadalka Xamaas iyo codsiga Laanqeyrta Cas waan idin hayaa Netanyahu iyo kooxdiisii mayalka adkeyd oo lagu qasbay in golaha ammaanka ay fadhi weydiistaan inuu kulan degdeg ah isugu yimaado golaha ammaanka soo ma ahayn golihii ammaanka go'aamadii uu soo saaray Netanyahu iyo kooxdiisu ay diidanayeen hadda maxaa ku qasbay Netanyahu iyo kooxdiisu golaha ammaanka inay codsi u gudbistaan ku saabsan arrinta Gaza haddaba tafaasiil ku saabsan arrinta iyana waan idiin soo gudbin doonaa ninkii Trump ahaa oo la sheegay inuu ka codsaday Netanyahu in gargaar la geliyo Gaza dad dambana ay halka aanay ugu dhiman gaajo wixii kalena waa la isaga imaana ayuu leeyahay haddaba tafaasiil ku saabsan wararka cusub ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo Isniin idiin soo gudbinaya inta aan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howladaynadoodu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay ee subaxnimo maanta